halkan waxa martiino ugu ah mudane xamse siyaad aw cabdi oo kamid ah hogaanka dhalinyarta ee qaaradda Yurub dhawaana uu gudoomiyaha xisbiga kulmiye mudane Muuse Biix Cabdi u magacaabay xogayaha xiriirinta qaaradda Yurub ee dhalinyarta haddaba xamse ku soo dhawow barnaamijkan aanu kaga hadlayno arrimaha dhalinyarta nooga warbixin naga sii dhawaan gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa madaxweyne ee xisbigu wuxuu magacaabay oo adiga ku magacaabay inaad noqoto xiriiriyaha guud ee qaaradda Yurub ee xisbiga kulmiye ilaa hadda ilaa intaad qabatay maxaa ku qabsoomay bal faahfaahin naga si السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم marka ugu horeysa aad baad u mahadsantahay Cabdi Casiis fursadan qaaliga ah siisay ugu horeyntaana wixii hortay qabsoomay aan ka hadal waxaan jecelahay inaan mahadnaq aan u diro gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna murashaxa madaxweynaha xisbiga kulmiye mudane Muuse Biix Cabdi oo aniga oo jooga dalka Ireland soo jeeday in aan noqdo xogayaha abaabkii wacyigelinta dhalinyarta ee qaaradda Yurub waxaan leeyahay boqolkiiba aad baad ugu mahadnaqayaa waxaan jecelahay inaan insha Allah taala wixii taalkaya iyo firfircooni iyo karti wixii aan leeyahay insha Allah taala ugu faa'iideyn doono mar labaad ka Cabdi Casiis kulli wax yar bay ahayd dadadu waxaan insha Allah taala halkan ku xusi doonaa laamaha Yurub qaybaha aan ilaa hadda ma garanaysaa aan wada xiriirnay aan jecelnahay insha Allah taala inaan safar dhawaan aan ku soo mari doono sida Jarmalka Sweden iyo Norway oo ka xusi doono laamahaas niman dhalinyaro oo xisbiga kulmiye ah sida Maxamed Sheekh Muuse oo kale oo joogay Sweden iyo Mahad Kadleeyo oo isna joogay Sweden Cabdikariin Khadar Diiriyo oo isna ah gudoomiyaha xisbiga kulmiye dalka Jarmalka oo nin dhalinyaro dhammaantood aad baan wada xiriirnay insha Allah taala waxaan doonayaa inaan wacyigelintii iyo abaabulkii si dhaqso ah insha Allah taala Yurub aan uga bilaabi doono waxa kale oo aan xiriir iyo wada shaqayn leenahay dhammaan laamaha iyo gudoomiyaha guud ee xisbiga kulmiye ee qaaradda UK dalka UK xiriir iyo dhammaan xubnaha laamaha kulmiye ee dalka Ingiriiska meel kasta joogaan waxaad Mr. Xamse soo la socono xisbiga kulmiye wuxuu galayaa doorashadii madaxtinimada sanadka dambe sida la filayo idinka ka dhalinyar ahaan ma leedihiin xiriir guud oo aad arrimaha iyo waxa idin qorshaysan doorashada inaad ka qaybgalkeega iyo fundraisingkeega iyo wax ma jiro maxaa jira imka aad pointiga dhaqaajiseen aad iyo waxa jira waxaan sameynay network homepage baan sameynay oo isku xidhaya dhalinyarta qaaradda Yurub oo dhan kaas hadda waa homepage-kaas gacantaan ka qaadnay oo dhawaan insha Allah taala waan soo bandhigi doonaa waxa kale oo aan sameynaa inaanu teleconference wada hadalno oo anagoo media ka faa'iideysanna aanu isu dirno inaan teleconference aan kaga wada hadalno hawlaha xisbiga waxa kale oo qorshaysan in aanu inta joogto Yurub ee aan tagi kareynin ka qaybgalka ama doorashooyinka in ay ka qayb lahaad oo xagga dhaqaalaha iyo fundraising aan ka qayb qaadano taasna waan ka bilownay dalka UK kulli marka ugu horeysay oo jirtay oo dhisnayd laakiin Jarmal iyo Sweden iyo Norway hadda waan ka bilownay fundraising insha Allah taala waxaan jecelnahay inteeda baxaysa mooyaane inta joogtaana inay xagga dhaqaalaha iyo wacyigelinta iyo abaabulka iyaguna ka qayb qaadan doonaan soo la soconay qurba joogu rol weyn bay ku leeyihiin doorashooyinka iyo madaxtinimada dalka Soomaaliland soo la soconay doorashadii 2010kii madaxweyne Axmed Maxamed Silaay wuxuu tilmaamay in ay qurba joogu boqolkiiba 50 ama 60 ay ahaayeen taageerada ugu weyn ee dhaqaale dadkii bixinayay dhalinyartuna dabcan way ka mid yihiin dadka waxaan tilmaamaysaa imika dhalinyar ragun dumarku miyaanay ku jirin oo dhalinyartii miyaanay rol iyo ku lahayn absolutely way jiraan laakiin waxaan ka soo qaatay window kanina hadda ma garanaysaa sida tooska wada xidhmeen laakiin laamuhu way ku jiraan hablo dalalka oo dhan way ku jiraan hablo dhalinyar oo waliba firfircoon ugu badnaadaan waliba hablaha ugu badan dalka UK ugu badnaadaan waa aad u fara badan yihiin waxaan oran karaa xisbigan waa xisbigii dhalinyarta waa xisbigii ugu dhalinyar badnaa oo loo dhiibo xilal maskabyo heer sare ah oo aad iyo aad ugu mahadnaqay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland jecelahayna
mustaqbalka madaxweynaha mustaqbalka Musabix Cabdine inuu isna halka ay meel ka sii daran u gaarsiin doono hadafka iyo himilada dhalinyarta waad maadsantahay xamse waxaan ku weydiin lahaa oo kaliya waxa la sheegayaa in gudoomiyaha xisbiga kulmiye uu boqosho ku iman doono dhawaan qaaradda Yurub barnaamijkaas ma intee leeg baad ka ogtay runtii waa barnaamijkaas waa laga diyaar garoobay oo dhammaan qaaradda oo dhan waliba ugu horeyso dalka UK oo iyagu ugu ballaaran dalka UK baa insha Allah taala hawshaas noo soo sheegay oo aan ka warhayaa abaabulkeedana waa lagu jiraa waxaa la doonayaa insha Allah taala inaan kulan ballaaran ku sameyn doono oo Yurub oo dhan la isaga iman doono caasimada dalka UK ee London hawshaas waa hawl aanu tabaabusheed iyo diyaar garowgeedii aan hadda ku jirno adiga shakhsiyan waxaad joogtaa magaalada Dublin ee dalkan Ireland marka ma laga yaabaa inuu yimaado halkan waan isku taxalluujinaa maadaama oo dalkan Ireland tadii sidii madaxweynuhu uu yimid inta badan oo madaxa oo magac ku leh dalka Soomaaliland ay kadib madaxweynaha ay yimaadeen waxaan jecelnahay boqolkiiba aan weynahay anigoo ku xusaya oo hawsheeda ku jiro safiirka Soomaaliland u fadhiya dalkan Ireland Mr. Daawud Cabdilaahi Gilingil oo hawshaas oo aad iyo aad uga sii diyaar garoobay oo aniguna aan taageero iyo garab iyo gaashaanba aan la garab taaganahay sidii uu gudoomiyuhu insha Allah taala nagu iman lahaa caasimada dalka Ireland ee Dublin okay waad maadsantahay xamse kaasna wuxuu ahaa xamse shariif sheekh siyaad aw cabdi xamse shariif siyaad aw cabdi oo ah xiriiriyaha guud ee dhalinyarta ee qaaradda Yurub aad baad maadsantahay xisbiga kulmiye waad maadsantahay xamse cabdi asiistan aad baad maadsantahay adiguna wassalaamu calaykum